siyaasi Salebaan Ibraahim Maxamed Xaaji Xasan oo kamid ah siyaasiyiinta qaranka Soomaaliland oo hotel Liban ee magaalada Burco waraysi ku siiyay telefishinka caalamiga GTN ayaa ugu horeyn ka hadlay waxyaabaha ugu waaweyn ee sababay sicir-bararka xarkaha goostay ee aafay dalkan Soomaaliland sidoo kale waxa uu talooyin dhaxalgal ah u soo jeeday dawladda Soomaaliland marka ugu horeysa sicir-bararka marka laga hadlayo waxa weeyaan lacagtii Soomaaliga iyo doolarkii oo ka batay marka waxa weey marka hore waxaan doonayaa meelaha inaga soo gali jirtay doolarku inaan ka hadlo koow wuxuu inaga soo gali jiray xoolaha nool waxa ku xigay dadka qurba jooga lacagta ay soo diraan waxa ku xigtay lacagta hay'adaha waxa afar ku ahayd oo ugu hoosisay lacagta dekada waynu ognay maanta arigii waa uu xidhan yahay dawladda Sacuudiga oo aynu la yeelanay gaashaanbuurteeda aynu ku biirnay ama xulufadeeda aynu ku biirnay ayay waxaan nibayeen xukuumadda waxa loo baahan yahay inay ka hawl gasho arintaas oo ama heshiiska aynu la galnay ee ah xulufaysiga inaynu ka baxno iyagii imaaraadku ay ku jiraan de ama wayna ariga inoo furto laba waxa ku xiga lacagtii dibadda laga soo diri jiray ee dadka qurba joog reer Soomaaliland ay soo diri jireen lacagtaas waxa imika lagu soo diraa xawaaladaha electronic money ee ay kamid tahay taaj iyo xawaaladaha kale taasna waxa ay ahayd xukuumaddu inay joojiso oo ay tiraahdo lacagtii adkayd ee qurba joog ay soo diri jireen inay si toos ah dalka u timaado marka halka ay imika ka xanibtay saada $100 wixii ka hooseeya waxay sax ku ahayd in ay xanibto $100 wixii ka sareeya waayo nimankan saada ee maxay yiraahdaa ii dahabta anigu waxaan u aqaanaa niman sameynaya lacag waxa la yiraahdaa money makers niman lacag sameeyay weey marka haddii imika la yiraahdo ha samaysanina qadaadiicda ee noorka samaysta de waa arrin khalad ah waxa weeyaan total in laba joojiyo ayay haddii aan la joojinayna $100 wixii ka badan ma samayn kartaan ayay sax ku tahay qodobka maxay yiraahdaa dekada berbera waxa bishii ka soo bixi jiray 15 milyan 15 milyan circulation based suuqyada Soomaaliland ku sameyn jireen maanta waxa lagu wareejiyay DB World waxaana lacagta loo dalacaa dibadda waxa weeyaan DB World waxa faa'iido dalka u soo sidaa ma jirto haddaynu sicir barar ka hadlayno madaxweynaha waxa looga baahan yahay inuu DB World ka saaro meesha qodobka hay'adahu waxa weeyaan waxa jiray hay'ada ayaa dalkeena joogi jiray oo jiray relief and humanitarian maantana waxa la sameystay SDF Somaliland Development Fund lacagtaas meel allaaliya meel ay ku dambeysay imika lama yaqaan lacagtaas dibadda ayay taala dalka mashaariic laga fuliyay 6 gobolba waxba loo qorsheeyay wali meel ay wax laga fuliyay lama arag taana waxaan leeyahay sicir bararka qayb ka tahay marka waxa weeyaan afarta qodob ayaa aas u ahaa soo galista lacagta adaga dibadda afartii midnaba sidii sax ahayd lagama yeelin xalka kale ee iyadana sicir bararka lagu la dagaalami karo xalka lagu la dagaalami karo sicir bararka koow waxa ka ah xukuumaddu inay qarashkeeda yareyso miisaaniyadda waa in kala bar la dhimo oo laga soo reebo ilaa 100 milyan oo kaliya waayo dadka dhaqaalaha ku takhasusay waxay yiraahdaan dhaqaalaha marka laga hadlayo waxa weeye sida aad u isticmaasho qarashka sida aad wax u haysato the economy is not what you have but how to use it waxa weeyaan dhaqaalaha sida aad u haysato ma waa sida aad u isticmaasho dawladdu waa inay xadido qarashka ay isticmaalayso waxa kale oo jira 3,000 oo gaari ayaa jira oo ay dawladdu leedahay oo number dawladeed leh oo fuelka ay maalintii qarash kareeyaan yahay $45,000 bishiina noqonaya milyan iyo 350 marka waxaan leenahay taasna dawladdu ha joojiso oo waxa weeyaan qarashkeeda ha yareyso miisaaniyadda hal soo koobo arinta sixir bararka dawladdu iyada ayaa xakameyn karta oo waxa weeyaan marka hore iyada keento 5,000 iyo 1,000 ay samaysay ayay ku keentay ee qeyrar macquulka ahaa maantana qodobadan ay soo saartay ma aha kuwa wax tarahe waxa weeyaan afartaas qodob ee aan sheegay ee ahayd lacagta adag inaga soo gasho afartiiba way xaniban yihiin
sidii aad dub ugu noqon lahayd qodobada u raaci lahayd samee siyaasigu isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay wada hadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaan doonayaa inaan ka hadlo arintan wada hadallada Soomaaliya wada hadallada Soomaaliya waxa weeyaan xukuumaddii hore ee kulmiye ayaa bilowday markii ay bilowday wada hadalka wax shuruudaha kuma xiran maantana halkii buu marayaa sida awgeed siyaasadii hore ay udub ku shaqeyn jirteen waa la bedelo political reform ayaa siyaasadii arrimaha dibadda kulmiye uu ka dhigay markuu talada la wareegay waana faashil waxa la filayay in madaxweynaha cusub wada hadalka total xidho hase yeeshee mar labaad ayuu ku baaqay waxaan maanta marka aan leeyahay muusow haddii aad bilowday xamar ka dig xamar si uun bay noqon doontaa xamar ka dego inta hadhay dhamaystir ugu dambeyntii siyaasi Salebaan Ibraahim waxa uu ka hadlay kala qaybsanaanta bulshada reer Soomaaliland kaasi oo keedaya xisbiga talada dalka ay kulmiyeen waxaan kala doonayaa inaan ka hadlo arinta kala qaybsanaanta dadka bulshada reer Soomaaliland may kala qaybsamineen waxa weeyaan hogaanka kolba yimaada ayuunba ama kala qaybin kara ama midayn kara waxa weeyaan kala qaybsanaanta madaxweynaha markii ololaha ku jiray buu keenay iyo xisbigiisu maanta haddii aad doonayso inaad midaysan adiga ayay ku taalaa Cirro iyo Faysal uma taalo laakiin madaxweynaha ku taalaa haddii aad doonayso inay sidan si ahaatana iyaduna waa mid kale laakiin waxa weeyaan siyaasiga ama hogaanka leaderka ayuunba ama dadka mideeya ama kala qaybiya taas waa hawl siyaasadeed oo adiga ku taala laakiin xisbiyada mucaaradka uma taalo waxbana ha u yeelino hawran mideeya dadka haddaad la timaado siyaasad saxana way midoobi haddii kalena waa taa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco